السلام عليكم walaalayaal weli waxaa inoo socdaa barashadii casharadii operatorada PHP saan hore ugu soo sheegnayba PHP operators waa operatoro uu isticmaalo language-kan la dhaho PHP especially markaad doonayso inaad isu qiimeysid variable-ada hadday noqdaan variable-adaas ay yihiin string ama hadday variable-adaas yihiin maaragtay numbers ama hadday yihiin nambaro marka waxaan hore usoo aragnay assignment operator oo ah markaad doonayso inaad tiro ku kaydiso maaragtay variable PHP ah waxaan kaloo soo aragnay operator kale oo aan ognahay oo magaciisa la dhaho concatenation operator oo ah kii dhibicda ahaa oo isku xirayay maaragtay markaanu displayga ku sameynaynay tusaalihii hore ee casharkii hore aan kusoo qaadanay oo ahaa dhibicda ahaa marka all of these waa operators uu isticmaalo PHP marka barashada PHP casharkani wuxuu ku saabsan yahay midka loo yaqaano comparison operator macnaha comparison operator in English comparison way waxaan isku dayay inaan af Soomaali u bedelo marka operatorka waxaan ku magacaabay isbarbardhigga marka isbarbardhiggaas waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo qiimaha ama noocyada PHP variableska marka tusaale tabeelo yar oo waxaa jira soo socda oo aan rabay inaan tusaaleeyo maaragtay operatoradaas waxay yihiin sida halkan ka cad meesha dhinacda bidix column-ka ugu geysay halkan geeska meesha operator ku qoran yahay waa PHP comparison operators column-ka ku xiga waa magaca waxa uu PHP maaragtay nooca operatorka uu yahay tusaale operatorkaas ah sida loo isticmaalo iyo jawaabta uu bixinayo markaad programkaagu uu ku sameynayo maaragtay qiimeyn marka saas oo la socda column-ka ugu horeeya waa operatorka kan ku xigo waa waxa uu yahay equal sign identical not equal aan la mid ahayn macnaha af Soomaali inaan ku sharxno waa isku day marka kan ku xigo waa tusaale operatorkaas sida loo isticmaalo iyo jawaabta programku ay ku muujinayo markaad u isticmaasho sida tusaalaha ku qoran meesha marka bal aynu fiirino sida aan u isticmaali karno haddii Ilaahay yiraahdo okay sidoo kale halkan waxaan nooc ugu cad maaragtay dariishadan yara hoosta ah sida aan u isticmaali karno comparison operatorka ama operatorkan isbarbardhigga ah waxaan qeexnay laba variable ah mid oo la dhaho x iyo mid la dhaho y marka labadaasaan qiimeynayna marka wixii yara hadda meesha ku qornaa tusaalihii ah ayaan programka rabnaa inaan ku muujino sida loo isticmaalayo waxa ay ku habboon tahay maaragtay inaan programka si toos u aragno sida loo isticmaalayo taasaaba kasii sahlan marka waxaan sameynayaa qoraalkan hoos ku qoran ayaan ku koobiyeynayaa marka hal ayaan maaragtay aan ugu sameynaynaa inaan maaragtay u ambaqaadno si aan u fahmno waxa programka una tusaaleynayo ama jawaabta una siinayo haddii Ilaahay yiraahdo sida halkan ku cad waxaan sameeyey file la dhaho aan kusoo koobiyey programka hadda aan meesha kusoo aragnay magaciisana waxaan u bixiyey sida halkan ka cad comparison demo.php marka comparison demo.php wax kale maaha laba variable ayaan qeexay marka waxaan rabaa inaan tusaaleeyo kan isu ekaanshaha leh marka haddaan fiirino hadda labadan aan maaragtay isbarbar dhigno oon dhahno save on programka rangareeyo okay bal aan programkaas ku point gareyno keni oo ahaa localhost then kaydka PHP then programkan hadda aan ku bilaa waxa la dhahaa comparison demo.php inaan file kugu jira wuu arkay sida halkan ka muuqata markaan tusaalaha labada isu fiirisaan vardam x waxay la mid tahay y marka wuxuu yiri waa run because labada qiime waa isku mid that's why labadooda run u yahay halkan kan ku xiga oo ah vardam x equal to y wuxuu yiri waa false waa been sababtoo ah wuxuu yiri labada tiro noocyadooda kala duwan midna waa number midna waa string see ku kala garanaynaa marka inuu midna number yahay midna string yahay haddaa halkaa fiirisid tirada numberka waxaa lagu gartaa male maxaa la dhahaa male quotes male macnaha labada dhinac labadan shay oo dhinacyada ka xiga male maxaa la dhahaa tirada oo numberka marka PHP programka akhrinayo laakiin kan hadda saa uga jeedaan y-ga wuxuu leeyahay string wuxuu wataa quotes ayuu wataa that's why uu leeyahay
false ayuu leeyahay. marka bal aan fiirino tusaalayaasha kale. aan qorno mid kale aan dhahno haddana vardam. kan ku xiga muxuu noqonayaa x is not equal to y. so aan fiirino x bal aan fiirino wax kasoo baxa kan ku xigo. marka jawaabtu waa inay noqotaa ben siduu anaga programka sidii hore aan ugu soo koobeyno uu yahay. bal aan save gareeyo anoo maaragtay isticmaalaya direct control s isticmaali kartaa dhib ma leh. bal aan ku noqono aan fiirino mar labaad aan ku celino aan dhahno refresh. saa ujeeda waa false sababtoo ah wuxuu leeyahay x lama mid aha y saasuu leeyahay. marka bal aynu sii wadno oon fiirino kuwa kalena. kuwa ugu fiican oo muhiimka inaan aragno ay tahay waxay tahay masalan kasoo qaad haddii tiradan aan ka dhigno masalan kasoo qaad tira konton aan dhahno marka kuwan oo dhan maaragtay marka aan dhahno tirada aan dhahno vardam aan dhahno control x way ka weyn tahay y aan fiirino bal saad ujeedaan labadan tiro x iyo y x waa 100 y waa 50. marka programkan comparison operatorka haddaan isticmaalayno midkan isbarbardhigga waxaan leenahay bal noo tijaabi x may ka weyn tahay y. su-aashaan weydiinayna programka waa kaas. bal aan aragno hadda say ka muuqato x way ka weyn tahay y waa in programku una siiyaa pool is equal to true. marka haddii ilaahay yara control s ayaan garaacay. marka programkan ku noqonayaa haddaan reerin waa in mid kaloo zaid kusoo qaamaa oo ku qoran yahay true. saad halkaa uga jeedaan halkan waxaa kusoo baxay true. so daad macnaheedu wuxuu yahay kani wuxuu ku aadan yahay program wuxuu ka jawaabayaa line 10 codekan line 10 ku qoran oo ah x waxaan niri waa 100 y waxaan niri waa 50. markaasaan waxaan niri x way ka weyn tahay y. xaqiiqadii x way ka weyn tahay y because x waa 100 y na waa 50. marka muhiimaddu waxay tahay inaan intaas fahmo. sidoo kale haddaan tijaabino haddana aan ku qorno meeshan vardam aan iraahdo x aan dhahno y is less than horta aan ku tijaabino x waxay ka yar tahay aan dhahno masalan x waxay ka yar tahay y. computerka aan weydiino wuxuu noogu jawaabo waxaan niri x waxay ka yar tahay y waan ognahay in x ka weyn tahay y bal wuxuu ku tijaabo marka jawaabta haddii computerka uu saxna siiyo waa inay noqotaa pool is equal to false oo ah macnaha arrintaas waa ben because x kama weynaan karto y because x waa 100 y waa 50. muhiimaddu waxay tahay inaan intaas fahmno. marka waa control s ayaan ku sameeyay mid kale aan ku darsoomaya bal meesha si fiican u fiiri refresh ayaan ku sameynayaa. saad ujeedaan waa false sida halkan iga muuqato waa false. sababta false uga muuqatana waxay tahay x waa 100 y waa 50. marka waxaan niri computerka x way ka yar tahay y isagaan weydiino niri x ma ka yar tahay y markaas wuxuu yidhi no false taas waa ben. marka taasna waa examplada sidaa u isticmaali karta ayay tusaale u tahay. marka operatorada isticmaalkooda markuu programka uu qorayo waxa uu mar walba isu qiimeynaya waa saas adoo isticmaalaya if statement if this is greater than this hadduu kani ka weyn yahay kan dan kanaan samaynayna camal. marka muhiimaddu waxay tahay inaan intaas fahantaan xigmadda iyo sida loo isticmaalo php operator waa intaasi. waxaad hadda ujeedaan waa vardamka functionkan anaga isticmaalayna oo vardam la dhaho oo function loogu talagalay in screenka si degdeg wax loogu qoro si aad u ogaato programkaaga waxaan suu qiimeynaya inay sax tahay iyo inay maxaa tahay qalad tahay. marka kolley intaasaan rabay inaan operatorada idin sheego. kuwa kale oo meesha ku qoran idinka ayaa inii dayanaya maaragtay inaad hal u tijaabisaan idinkoo raacaya maaragtay tusaalahan aniga halkan aan igu siiyey. marka insha allah waxaan isku arki doonaa casharada haddii ilaah yiraahdo. waxaan rajeynayaa inaad fahamteen. waxaan sii wadi doonaa casharada haddii ilaah yiraahdo. السلام عليكم. 10 كده ما أشكركم.